haddaba barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee xaaladda bariga dhexe oo aanu marka hore ku bilaabayno xootiga oo iminka la qorshaynayo in weerar ballaaran lagu qaado oo afarta dhinac laga weeraro. waaye weerarkan maxay tahay muhiimadiisu? waxaa la hubeeyey toddobaadyadii lasoo dhaafay diyaarado drones la siiyey, taangiye la siiyey, hub la soo siiyey, ciidan la yidhaahdo ciidanka dowladda Yemen oo macnaha dowlad adduunku taageersan yahay oo xarunteedu cadan tahay oo dowladnimada Yemen loo aqoonsan yahay oo Sacuudigu aad u taageero iyo wadamadan kale ayaa hadda waxa leeyahay waxa la soo hubeynaya iyaga la soo dhaxmaraya si lugta ciidamo lugta ah loogu soo weeraro xuuti Sacuudi Mareykan kulli duqeyn Israa'iil waxba waa uga qaadi waayeen. hadda marka waxa la degay khidad ah in dhulka la isticmaalo oo Yemeniyiin kale loo isticmaalo. sheekadu marka waxa la rabaa marka in meeshaas markan laga hujuumo dhowr jiho laga soo weeraro si marka xuutiga awoodiisa loo daciifiyo, khatarta uu xuutiga ku hayo baabal mandab meesha looga saaro. waxaa la yiri marka xalka kaliya oo xuuti looga adkaan karo waa kaasa la yiri Sacuudiga iyo xulufadiisu qorshahaas soo dejiyeen in la taageero qolyaha Yemanta ee xuutiga ka soo horjeeda. laakiin meesha waxaa taala qolyahan Yemanta ah si kastoo loo taageero xuuti ma ka adkaan karaan. ma la isku dayay hadda ka hor in talaabo noocan oo kala la sameeyo? khaliijka oo dhan iyo Mareykan iyo kulli oo isla socda ayaa waxay rabeen xuutigu inay ka adkaadaan. waxay sameeyeen hub iyo wax walba ayay dhanka kala siiyeen, dhankii kala hubkii kala qaatay, iyagii yaa kala jabay, qaar Imaaraat raacay, qaar Sacuudi raacay, wixii hubkii meesha u kala galay. xuutigiina wuu sii awoodiisu way sii fogaad u fiirsada. haddana waxaa leeyahay Yemantu dad maartay meeshii la rabo loo dirsan karo oo la isticmaali karo ma. xayawaanadu waxay kala leeyihiin xayawaan duurjoog ah iyo xayawaan dadka la nool ay kala leeyihiin. marka Yemantu dadka la nool ba noqdaan leey. ninkan waa marqaamaya taqsiintiisa u taagan qorigiisu wataa meeshay ka qabato tagaya. marka waxa leeyahay sidee lagu aamini karaa hubkan lagu daldalayo nimankan in iyagii si kala go'aan? nimankan laftirkoodu waa qabaa'il iyo kooxo la isu geegeeyo waa dowladda la leeyahay ciidankeeda hal mar ay kala furmaya. haddaba qaar badan oo Imaaraadka la socda inta soo galay saas ay kala guurayaan. marka waxa leeyahay hubkan la sii gelinayo maartay Yemen khatar badan oo keenaya. xuutigana warkooda waa soo koobeen, calanka Iiraan ay iska soo qaateen. annaga Iiraan iyo annaga waa isku mid aaneed. macnaha waxa waaye haddii annaga culays aan dareenno jugta culus ee Iiraan dhanka loo soo leexinaa bas dowladdan Yemen la leeyahay iyo Sacuudi iyo abaab alaabtan hal mar la degaa kuwan hal mar meesha laga saaraa. marka calankiyaaba la soo qaato waxa leeyahay annaga xuuti aan loo maleynin. xuuti kaligiisu meel iska socdo jabhada manin Yemen waxaan nahay annaga Iiraan nahay. haddaba marka aad tuso sheekadan oo warbixin la yaab leh uu ka qoray wargeyska la yiraahdo Sharqul Awsat. Sharqul Awsat waxay leedahay istinfaar ku jira xuutiga, macnaha wuxuu ku jira heegan sare ayuu ku jira xuutiga iyadoo laga baqayo weerar kaga yimaada dhanka xukuumadda iyadoo weerarkaasna uu noqon doono mid dhinacyo kala duwan ka yimaada oo macnaha xukuumadda Yemen ayaa soo weerari doonta leeyahay xuutiguna difaac ayuu ku jiraa. xuutiga marka iyagu maba isdhibayaan, calankaya Iiraan ay soo qaateenba waa mudaharaadayaan. waxay leeyihiin ninkii annaga kaligeed noo malaynaya ha iska ilaaliyo jugta culusa ku xigta haddii annaga dowlado badan isugu kaana tagaan. marka meeshaas maxaa laga fahmayaa? fariin waaye calankaasaa wataa waa aniga qoladaasaan ba ka tirsanahay. ninkii noo malaynayo ciyaal yar yar oo jabhada iyo odayaal oo qoryalo ordaayo oo meesha jooga oo jabhada alla ilaahay jabhad banihin ilaahay annaga Iiraan anahay macnaheedu awlaadi Iiraan anahay waa annaga ciidan kasta soo hubay
markay xaalka loo yaabo waa wacanaynaa bas waxa ka socda bariga dhexena waa ognahay marka xaalkaas halkaas u bara bal adinkuna fakar iyo aragti waxa qabtaan loo soo qora xuutigu ma laga adkaan karaa sida hadda xaalku yahay weerarka la qorsheeyay iyo taatikada loo isticmaalayo mise lagama adkaan karo qof walba dee fakarkiisa iyo aragtidiisa ha soo qoro isagana aan aragno qodobka halkaas kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaynaa qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka ayaa aad waxay uga caraysan yihiin wararka ay ka maqlayaan dagaalka Iiraan waxaan ka yaabanahay leeyihiin Mareykankii dhamaa oo la leeyahay gantaalihiisii difaaca cirka way dhamaanayaan waaba eber oo haddii China soo weeraro maanta ama meel kale uu weeraro waddanaan saaxiibnahay oo aan inaan difaacno maxaa ku difaacaynaa war dagaalkan hanal ka joojiyeen dagaalkan baas oo natiijada aan lahayn gantaalihiina naga dhameeyay hal la joojiyo sidee marka gantaalahan maxaa dhameeyaa leeyahay marka dad khubaraa la weydiiyay war Mareykankan cabaada ay gantaalihii difaaca cirka iga dhamaagad gantaalaha drones lagu dhameeyaa leeyahay drones gantaalka Mareykanka in la soo saaro waqti uu qaadana droneskan maalintii 200 300 wax bay soo saareen Iiraan iyo ka badan lacag badan ma joogaan daroonkaas oo soo ula dhacay marna ula weynay Iiraan u difaalkii Israa'iil u difaacay halkan ku difaacay bahladii ka dhamaadeen maraakiibtiisi laftirkeeda wixii saarnaa waa dhamaadeen marka hadda xildhibaanadu waxay leeyihiin naga joojiya dagaalkan billaah calaykum waxaan isku difaacnaba ma haysanay sheekada waa soo badan ay moogtay barnaamijkii labaadna warqadii loo diray waa ogeydeen Trump oo taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Yurub barnaamijkeygii labaad barnaamij aad u xiiso badan oo dadka aan daawan doonaan sheekada waxaan idin kullu isfurfurayaan tabardariya meesha ka muuqat haddaba marka aan idin tuso mar kale nin xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee talada waddanka Mareykanka haya ayaa wuxuu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin isaga iyo saaxiibadii waliba dhiigbaxa ka socda makhaasiinadii sawaariiqda difaaca cirka way sii dhamaanayaan meeshii makhaasiinadeennii hubka ku jiray difaaca cirka waa dhamaanayaan ninkan wuxuu u warramay shabakada la yiraahdo Fox News waana ninka madaxdu ah gudida istikhbaaraadka ama sirdoonka golaha shacabka ee Mareykanka ah waxa la yiraahdaa xildhibaan jamhuuri ah Ray Crawford la yiraahdaa wuxuu leeyahay waxa kan waa istinzaaf waa dhiig bixida nagu socod dhiigeeniya daadanaya macnaha waa dhamaadeen sawaariiqdii difaaca ee hawada way dhamaadeen marka wuxuu codsanayaa in degdeg loo joojiyo hawlgalladan ka dhanka Iiraan waxaan naga joojiyo leeyahay wallahi isbarana leeyahay meeshan Iiraan waa la bartay baraka waa qayli wuxuu yiri istinzaaf aanu socdo istinzaafku macnihiisu waa dhiig bax waaye dhiig qofka haduu dhiig baxayo dhiig socdo tabar dhiga marka dambe u dhacaya marka wuxuu yiri dagaalkan wuxuu nagu sameeyay makhaasiinadeennii hubka dhan wuxuu ka dhigay dhiig bax macnaha waa sii socdaan waa eber ruuxana la ka joojiyo dagaal ma waxan dagaalkan hal la joojiyo taagay qodobka marka halkaas isaguna kaga gudbaynaa qodobka kale marka Israa'iil wali waxay rajo ka qabtaa Trump inuu weerar weyn ku qaadi doono Iiraan dagaalka Iiraan Trump uu iska dhaaf waa dhibayada Iiraan wali oo xoog leh meesha taagana dhibays waxay rabtaa inay qoorta isku galaan isbaabiyaan Mareykan iyo Iiraan marka waxay ka xumaadeen xalay go'aankii Trump uu hadana qaad laakiin waxay leeyihiin annagu wali heegan Kenya ku jirna waa ognahay Trump waa isbedela bari asagoo weerarayda tusina haddaba markaan idin tuso Al Jazeera waxay leedahay wargeys Israa'iili ayaa wuxuu sheegay in Israa'iil ay wali xaalad ta'ahub ku jirto xaaladii maartay diyaar garowga ay ku jirto oo xaalad degdega ay ku jirto oo markaa isdifaacid ah xaaladeeda markaa isdifaacidaas ay ku jirtaa iyo waliba xaaladaas oo weerarna hadii loo baahdo ay qaadi karto marka wuxuu leeyahay mowqifka Iiraan aritaas ayaana markaa arikaas ninka hadlaa marka waxa la leeyahay waa nin wasiir ah oo ka tirsan golaha wasaarada kooban ee Israa'iil ninkaas oo la yiraahdo Zaif Elkin ayaa la yiraahdaa marka wali marka rajaan qabnaay leeyahay rajo in Iiraan nagta laga saari doono
qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa Falastiin reer Gaza mar kale ayaa maanta la xasuuqay Israa'iil heshiisa la gaaray maalin hore qababac iyo Xamaas hub dhiibaysa iyo kan iyo waxa soo lama lahayn anigu waa idin sheegay waxa yiri meeshan nimankan inay qaataan ka go'an wax heshiis la yiraahdo ma socdaan waxaan kala dhan waa iska ruwaayad nimankan waa imaanayaan dadkii laynayaan waa iska baxayaan maanta waxay dheen laba hogaamiyaan dilnay oo aan meel gaadmaa ku helnay hogaamiyayaasha kaliya ma ku ekaatay maya caruur yar yar hatta cunug caloosha ku jira la leeyahay janiin oo caloosha hooyadii ku jiro dhowr bilood ayay dileen marka wax la adkayso kara ma meesha waxa ka socda haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay wargeyska Raayul Yawm wuxuu leeyahay 14 Falastiiniyiin ayaa shahiiday maanta oo ay ku jiraan laba caruura weerar markaa la sheegay Israa'iil inay ku qaatay Gaza Israa'iil waxay sheeganaysaa inay weerar gaadmaa ku dileen laba hogaamiye oo ka tirsan Xamaas xarakada waxay sheegtay in markaa weerarkan Netanyahu uu ugu talagalay in ay ku fashiliyaan wax kasta oo xabad joojin iyo heshiis laga damacsanaa ayaa lagu eedeeyay haddaba marka waxaa la sheegayaa weerarkan inuu xadgudub ku yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee dhanka xabad joojinta waxaana sidoo kale uu caqabad ku noqonayaa dadaalada la doonayo in nabad looga dhaliyo Gaza oo ay wadaan Trump iyo golaha la yiraahdo golaha nabadda waxaana la sheegay weerarkii maanta in ay ku dhinteen caruur yar yar oo laba ah iyo cunug la sheegay inuu caloosha hooyadii ku jiray oo isaga iyo hooyadiiba la sheegay in weerarkaas ay ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay barnaamijkana qodobkaas ayaa ugu dambeeyay mar kale aanu ducayno dadka Falastiiniyiinta ee dhibaataysan in ilaahay dhibaatada iyo mushkiladda ay ku jiraan uu ka dulqaado dadka waa imtixaanan yihiin wallahi dhibaata ku ahaysad marka ilaahay baa ka dulqaadi kara anagu ducaan la awoodna hal loo ducay barnaamijkii waa naga intaan mar kale kulmayno haddii Allah idmeeyo barnaamijyo kale